أميرka إمارات دبي أهنا رئيس الوزراء إمارات كعربتا شيخ محمد بن راشد المكتوم ayaa tiriyay gabay dheer oo dawladda Qatar ugu baaqayo dib inay ugu soo laabato midnimadii ay la lahayd dalalka Khaliijka isla markaasina ay soo afjarto kala qaybsanaanta Sheikh Mohammed bin Rashid ra'iisul wasaaraha Imaaraadka ayaa gabaygiisa waxa uu ku sheegay waana la xiriiday in la gaaray waqtigii midnimada loona baahan yahay in dhinacyadu ay isu turaan oo la tuuro nacaybka soo kala dhaxgalay dalalka Khaliijka iyo Qatar Sheikh Mohammed bin Rashid oo gabaygiisu ku qornaa afka Carabiga ayaa waxa uu soo dhigay barta uu ku leeyahay dhinaca internetka gaar ahaan Instagramka ra'iisul wasaaraha Imaaraadka Carabta Sheikh Mohammed bin Rashid waa nin hore loogu yaqaanay inuu gabayada tiriyo gabaygan hadda uu tiriyo oo loo yaqaan amaba ciwaankiisu yahay adarbu waadix ayaa uu ku soo qaatay hadallo waana waxaana kamid ahaa waa inaynu caawinaa si ay hadhow inoo caawiyaan waxa kale oo kamid ahaa tuducida gabaygaasi in dalalka Khaliijku ay wadaagaan xudun kaliya qabiil isku mid ah dhul kaliya iyo diin isku mid ah isagoo gabaygiisa sii watana waxa uu soo qaatay hadal uu hore caan ugu ahaa amiirku oo shacabka wadankiisa uu ku waaninayo in dantooda gaarka ah ay ka horeysiyaan danta wadamada jaarka la ah mar kale isagoo gabaygiisa sii wata amiirka Dubai waxa uu sheegay in si furan ay ula talinayaan wadanka Qatar isagoo soo xigtay mid kamid ah hadaladii rasuulka naxariis nabadgelyo korkiisa ha noqotee oo tilmaamaya in xayawaanka yeeygu uu cuno kaliya taneefka gooni uga baxa xoolaha intooda kale waxaana ay u muuqataa in amiirku wadanka Qatar uga digayo inay gooni uga baxdo dalalka xulafada Khaliijka isla markaasina wax walba ay ku dhici karaan inta ay gooni u taagan tahay telefishinka Al Jazeera oo soo xigtay gabaygan uu tiriyay ra'iisul wasaaraha Imaaraadka Carabta Sheikh Mohammed bin Rashid ayaa waxa uu sheegay in macnaha gabayga ra'iisul wasaaraha marka la eego ay aad uga duwan tahay luuqad adag oo maalintii shalay wasiirka amuuraha dibadda wadanka Imaaraadka Carabta Anwar Gargash uu ka sheegay warbaahinta in la saari doono isagoo tilmaamay in cunaqabatayn aanay ka soo waaqsan doonin la saari doono wadanka Qatar haddii aanay fulinin shuruudaha xulafada ay u soo gudbiyeen balse sida duruucda gabaygu uu tilmaamayo ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu muujiyay mowqif ka dabacsan go'aanka wasiirka amuuraha dibadda